maxaa aamusiyay madaxweyne xasan sheekh maxamuud xilli laga sugayay inuu dadka Soomaaliyeed iyo hooyooyin waqti dheer oynayay u kala cadeeyo in ay wada nool yihiin ciidankii Soomaaliyeed ee tababarka u joogay dalka Eritrea maxay tahay sababta filla Soomaaliya iyo warbaahinta qaranka Soomaaliya u baahin waayeen macluumaadka iyo xogta dhabta ah ee ciidankii Soomaaliyeed ee ku sugnaa dalka Eritrea xilli warbaahinta Eritrea ay baahisay muuqaalada iyo sawirrada ciidamo Soomaali ah oo waqti dheer tababar ku qaadanayay dalka Eritrea xilli uu ciidankaas booqday madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud khudbadna uu u jeediyay su'aalo badan ayaa ka taagan sababta uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uga aamusay ciidamo laga sugayay warkooda hadda ka horna uu sheegay in qaar badan oo ka mid ah ay ku dhinteen dagaalkii ka dhacay waqooyiga Itoobiya muuqaalkan ayaad ku daawan doontaan xogtaas oo faahfaahsan fadlan like saar muuqaalkan una share garee asxaabtaada followna soo page-kan si aad noola jaan qaado madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu sagaalkii bishan safarkiisii saddexaad oo ah dalka dibadiisa ku tagay dalka Eritrea oo ay ku maqnaayeen 5,000 oo ciidamo Soomaaliyeed ah oo dalkaas tababar loogu qaaday ciidankan oo muddo 3 sano ku dhow ku maqnaa tababar ayaan laga hayn xog sax ah waxaana jiray warar xooggan oo lagu faafiyay warbaahinta caalamka iyo tan Soomaalida taasi oo la xiriirtay in ciidankaas loo adeegsaday dagaalkii ka dhacay waqooyiga Itoobiya waxayna ahayd eedayn culus oo loo jeediyay madaxweyne Farmaajo iyo dawladdiisii taasi oo ay beeniyeen balse la aamini waayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo xilligaas hormuud u ahaa mucaaradkii ku dhiiraday inay si toos ah u dhahaan ciidankaas waa la laayay ayaa hadda nasiib u yeeshay inuu noqdo madaxweynihii ugu horreeyay ee Soomaaliyeed ee ciidankaas booqda waxaana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud laga sugayay inuu ciidankaas warbixin dhameystiran ka siiyo waaridkood iyo dadka Soomaaliyeed laakiin se nasiib darro madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo kooxdiisu waxay awoodi waayeen macluumaadka ciidankaas inay ka sii daayaan warbaahinta qaranka iyadoo taas bedelkeeda warbaahinta dalka Eritrea laga baahiyay dadka Soomaaliyeed ayaana isweydiinaya sababta loo waayay hadalka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo xogta rasmiga ah ee ciidankan waxayna falcelinta shacabku noqotay laba qodob oo kala duwan kow in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu yaxyaxay kuna dhiiran waayay inuu dadka Soomaaliyeed si cad ugu sheego inay ciidankaas nabad qabaan ayagoo qaatay tababar sare ayna joogaan xilligii dalka dib loogu soo celin lahaa labo in madaxweynuhu uu helay xog gaar ah oo ku saabsan ciidankan oo ah inay ka qayb qaateen dagaalkii ka dhacay Itoobiya madaxweynuhuna uu la aamusan yahay war aan ahayn kan hadda laga sugayo labadaas qodob oo ah kuwa aad u kala duwan ayay shacabku qabaan xilli taageerayaasha Farmaajo ay ku doodayaan in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu dhiiqo lugaha kula jiro oo warkiisii ahaa ciidankaas waa la laayay uu ku beenoobay wax ka yar 2 bilood halka ay qabaan taageerayaasha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in madaxweynaha warkiisu uu run noqon doono oo madaxweynuhu la aamusan yahay xog aan ahayn tan hadda laga sugayo daawada sida waragtaa fikirkaaga qaybta hoose ee commentiga nagula wadaag muuqaalkan u share garee asxaabtaada